21 bishii labaad ee sanadkan waxaa hal mar dunida qabsaday war tilmaamaya dhacii adduunka ugu weynaa ee laga geysto internetka kadib markii xatooyo dhanka internetka ah lagula kacay shirkadda labaad ee adduunka ugu weyn dhanka sarifka lacagaha cryptocurrency-ga in the largest crypto heist in history oo lagu magacaabo Bybit 401,000 oo ah lacagta loo yaqaan Ethereum dollar ahaanna u dhiganta 1.4 bilyan oo dollar ayaa loo wareejiyay akoonno kale waxay ka faa'iideysteen xilli lacago ay isla shirkaddan leedahay laga soo wareejinayay akoon loona wareejinayay akoon kale oo shirkadda ah dhacdadan ayaa argagax weyn gelisay shirkadaha sarifka lacagaha cryptoga ka shaqeeya hackerkan ayaa si la yaab leh u bedelay cinwaanka lacagta loo waday isagoo lacagta u leexiyay akoon kale oo uu isagu leeyahay Mareykanka ayaa markiiba farta ku fiiqay in xatooyadan internet ay soo qaadeen burcad ama hacker ka soo jeeda Kuuriyada Waqooyi burcadan internetka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa horey ugu lug lahaa xatooyo bilaayin dollar ah oo ay ka geysteen internetka 11 sano ee u dambeysay haddaba maxaa ka jira in Kuuriyada Waqooyi ay ka dambeysay xatooyadan lagula kacay shirkadda Bybit maxayse tahay ujeedada ka dambeysa ee ay u qaadeen falkan muuqaalkan ayaan kaga bogan doonaa jawaabaha su'aalahan oo idil ma rabtaa in sanadkan waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal ah looga soo xajiyo haddii ay jawaabtaadu haa tahay waxa ka caawinaysa culimo joogta magaalada barakaysan ee Maka kuwaasi oo kaaga soo xajinaya waalidkaaga waxaad kala xiriiri kartaa WhatsApp lambarka ka muuqda shaashadda sidoo kalena aad ka heli kartid commentiga ugu horeeya sanadkii 2003 Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay ka baxday heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka oo ay horey u wada saxiixdeen iyada iyo 190 wadan oo kale sanadkii 1968 heshiiskan ayaa dhigayay in la xakameeyo habadeegsiga hubka waxkumaada ee nukliyeerka kaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka iyo Ruushka Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiskan sanadkii 2003 waxayna sabab uga dhigtay ka bixidda heshiiskan inay rabto xorriyad u helidda horumarinta hubkeeda nukliyeer waxayna ka cabsi qabtay in haddii iyada oo aan heshiiskan ka bixin ay horumariso hubkeeda ay la kulmi doonto weeraro dibadeed iyo cadaadis dhaqaale sanadkii 2006 Kuuriyada Waqooyi waxayba samaysay tijaabadii ugu horeysay ee hubkeeda nukliyeerka taasi oo qayladhaan ay ka muujiyeen Mareykanka iyo gaashaan buurtiisu arrintani waxay horseeday in Mareykanka iyo xulafadiisu ay bilaabaan in ay go'doon iyo cunaqabateenno dhinac kasta ah ay ku soo rogaan Kuuriyada Waqooyi walow dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi uu hoos u dhac ku yimid haddana maysan noqon mid joojisay horumarinta barnaamijkeedii hubka nukliyeerka iyo tijaabadii ay sameynaysay cunaqabataynta la saaray awgeed markii adduunku uu u gudbay caalamka dijitaalka ee la isku dhaafsanayo lacagaha Kuuriyada Waqooyi waxay fursad u aragtay in ay ka samayn karto dhaqaale ay barnaamijkeeda nukliyeerka ku horumariso lacagahan internetka la isku dhaafsanayo waxay samaysay kooxo aad u tababaran oo hackeris ah kuwaasi oo dhac ka dhex geysta bangiyada iyo hay-adaha maaliyadeed ee ay u aragto in habacsanaan ay ka jirto dhanka ammaanka sistamyadooda Kuuriyada Waqooyi waxa uu ahaa dal tiknoolajiyad ahaan go'doon ah oo ay samaysay cunaqabataynta saaran balse dunida waxay uga yaabiyeen heerka ay ka gaadheen dhanka cyber security-ga ama weerarada dhanka internetka ah sanadkii 2011 ayay ahayd markii koox burcad ah oo la sheego inay ka mid yihiin militariga Kuuriyada Waqooyi ay duulaan dhanka internetka ah ku qaadeen dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed weerarkan oo ay la beegsadeen bangiyada dalkaas ayaa ahaa mid ujeedkiisu yahay in ay carqaladeeyaan adeegyada bangiga walow aysan jirin xatooyo loo geystay bangiyada dalkaas haddana waxay noqotay arrin fajac iyo amakaa ku riday adduunka sanadkii 2016 waxaa dunida ka dhacay weeraradii ugu horeeyay ee dhac ah kuwaasi oo loo geysto bangiyo iyadoo ay fulinayaan kooxo burcad dhanka internetka ah weeraradan ayaa mid ka mid ah lagu beegsaday bangiga dhexe ee dalka Bangladesh halka mid kalena
lagu beegsaday bangiga ugu weyn qaaradda Afrika kaasi oo uu fadhigiisu yahay dalka Koonfur Afrika. dhacdada koobaad oo dhacday horaanta bishii Febraayo ee sanadkaasi ayay qaadeen kooxda burcadka internetka ee loo yaqaan Lazarus, kuwaas oo sidaynu soo sheegnay la rumaysan yahay inay yihiin unug ka tirsan ciidanka Kuuriyada Waqooyi. dhacdadan xatooyada ah ayay markan rabeen inay ku lunsadaan hanti ku dhow $1 bilyan, waxayna rabeen kooxdan hackeriska ah inay lacagtaasi kala wareegaan bangiga iyagoo adeegsanaya habka xawilaadda caalamiga ah ee loo yaqaan Swift. $81 milyan ayaa u suurta gashay inay xadaan, halka $20 milyan na laga soo ceshay. dhacdadan ayaa noqotay midii ugu horeysay ee bangi dawladeed uu sheego in burcad dhanka internetka ah ay weerar ku soo qaadeen lacagna ka dhaceen. dhacdada labaad ayay burcadani mar kale ku qaadeen bangiga Standard Bank oo uu fadhigiisu yahay dalka Koonfur Afrika. bangigan ayay u dhaceen qaab aad u yaab badan oo aysan cidna filayn. sanadkii 2016 waxaa goor habeennimo ah isugu yimid guri ku yaala caasimadda Japan ee Tokyo dhalinyaro badan oo da'yar ah, kuwaas oo kan ugu weyn uu yahay 30 jir. goobta waxaa ku sugnaa oo ay kula kulmeen nin u sheegtay inuu ka mid yahay maafiyada ka jirta Japan. kadibna wuxuu dhalinyaradii u qaybiyey oo uu mid walba siiyey kaadhadh bangi ama credit card aysan wax xog ah ku qornayn. wuxuu ku yidhi, waxaad fulinaysaan howlgal gaar ah, idinkuna waxaad qaadanaysaan lacag khidmad ah. kadibna wuxuu u tilmaamay inay tagaan dukaan caan ah oo faracyo badan ku leh dunida, kuna yaala xaafad kasta oo ka mid ah xaafadaha dalka Japan, waxaana la yiraahdaa dukaankan 7-Eleven. wuxuu ku yidhi, marka aad dukaankaas tagtaan waxaa dukaan kasta hortiisa yaala ATM tilmaamaha noocaas ah leh. kadibna kaararkan bangi ee aan idin siiyey ayaad u adeegsanaysaan ATM-yadaas, isagoo u sheegay inaysan meel kale u adeegsan kaadharkan bangi. marka laga reebo dukaanada uu u tilmaamay oo keliya, wuxuu u sheegay in howlgalku uu bilaabanayo bari subaxnimada, isagoo uu ku yidhi, bari marka uu waagu bariyo mid walba oo idinka mid ah waxa uu ka soo saarayaa ATM-ka loo tilmaamay lacag gaadhaysa $900. sidoo kale waxa uu ku yidhi, qof walba oo idinka mid ah waa inuu 19 jeer oo keliya uu ku noqdo ATM-ka, isagoo intaa ugu daray in haddii aad 20 jeer gaarsiisaan lacag soo saaridda in kaarka bangigu uu idinka xidhmi doono oo la xayirayo. sidaasi awgeed waa in qof walba uu 19 jeer oo keliya lacagta ka soo saaro ATM-ka, taasi oo halkii marba gaadhaysa $900. sidoo kale wuxuu u sheegay in howlgalkani uu soconayo maalin kasta 3 saacadood oo keliya, laga bilaabo 5 subaxnimo ilaa 8 subaxnimo. wuxuuna raaciyey in haddii mid iyaga ka mid ah 19 jeer uu lacagta soo saaro ka hor inta aan la gaadhin 8 subaxnimo, in uu sugayo ugu yaraan 1 saacad oo dambe si uu mar labaad howlgal kale u bilaabo oo haddana 19 jeer oo kale uu gaarsiin karo. kadibna wuxuu ku yidhi, waxaad qaadanaysaan lacagta aad soo saarteen 10%, halka 90% soo haray aad aniga ii keenaysaan. howlgalkan oo socday dhowr maalmood ayay dhalinyaradan waxay guud ahaan la bixin lacag gaadhaysa $19 milyan. goor dambe ayay dowladdii Japan ka war heshay falkan, kadibna dabagal dheer oo ay sameeyeen waxay ogaadeen in kaadharkan bangi ee la adeegsaday oo ahaa koobi in laga soo xaday bangiga ugu weyn qaaradda Afrika ee ku yaala dalka Koonfur Afrika, kaasi oo la yiraahdo Standard Bank. sidoo kale waxay ogaadeen in gebi ahaanba howlgalkan xatooyo ay ka dambeeyeen kooxda hackeriska ah ee la yiraahdo Lazarus, iyaga oo shirqoolay dhalinyaradan Jabaneeska ah si ay u fuliyaan howlgalkan. waxaana xatooyadan farsameeyey dhalinyaro u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi. dhacdadan oo dadyowga Japan ay xilligaas la yaabeen ayay xukuumadda Japan waxay xilligaas soo xidhay dhowr boqol oo qof oo ay ku tuhunsanayeen dhacdadan, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in sirdoonka Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsadeen falkan. sidoo kale dhammaan lacagihii lagala baxay ATM-yadaas waxay ku dhaceen jabka xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. xukuumadda Kuuriyada Waqooyi iyo sirdoonkeeda oo kaashanaya hackeriskoodan halista ah ee ay carbiyeen ayaa fuliyey howlgalkan aynu ka soo sheekaynay sanadkii 2016.
iyagoo xilligaas qorsheeyey inay xadaan kadibna koobiyeeyaan xogta kaadhadhka sharciyeysan ee uu bixiyo bangiga ugu weyn qaaradda Afrika, waxayna ka faa'iidaysteen daldaloolo amni oo ka jiray nidaamka bangiga, kadibna u adeegsadeen inay lacagta kala baxaan ATM-yadan ku yaala dalka Jabaan. Kuuriyada Waqooyi waxaa saaran cunaqabatayn daran iyo xayiraad dhan kasta ah, balse waxay lacago badan ka helaan farsamooyinkan oo kale iyaga oo dhaca suuqyada dunida oo dhan. Waxay sanad walba fuliyaan howlgallo cyber attack ah, kuwaasi oo sanad kasta ay ku dhacaan lacag gaadhaysa $1 bilyan. Qaramada Midoobay ayaa horay ugu eedeysay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi inay fuliyeen hackeriskoodu weeraro dhanka internetka ah intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2023, kuwaasi oo lagu dhacay lacag gaaraysa $3 bilyan, iyaga oo sida la sheegay lacagtaas u adeegsada kabista barnaamijkooda nukliyeerka iyo samaynta gantaalada baalistiga ah ee qaaradaha isaga kala gudba. Intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey, ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Mahadsanidin.